waxay ka soo galeen Feerfeer waa xuduudda gobolka Hiiraan la wadaago deegaanka Soomaali galbeed waa 1500 oo kamid ah ciidamadii Soomaaliyeed ee Eritrea loo qaaday waxaana uu helinaya 5,000 oo ah ciidamo Eritreyaan waxay hadda ku hararsanayaan duleedka degmada Beledweyne gaar ahaan deegaanka Ceelgaal waxay sitaan saanad ciidan oo dhameystiran waxaa taageeraysa dowladda Qatar waxayna ku soo baxeen amar farmaajo bixiyay intii uu ku sugnaa Qatar oo u doonay bajadkii ay ku howlgali lahaayeen waxaana la qorsheynayaa safar dhulka ah oo madaxweynuhu ku booqanayo xeryaha ciidamadan la dejinayo waxaana ciidamadan loo diyaariyay khidadii howlgalkooda oo aan idin wadaagi doonin maadaama ay tahay qorshe ciidan waana warbixinta galwareed oo ah degdeg ee sheergareeya oo ku faafiya daafaha caalamka shacabka Soomaaliyeed gaarsiiya muuqaalka leegtira dhaco beejikeena galwareed soo falo gareeya waa hagaag aan ku bilaabo wararkan ka helayno deegaanka Ceelgaal ee duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku soo waramay inay soo gaareen in ka badan 20,000 oo isugu jira ciidamadii Soomaaliyeed ee loo qaaday wadanka Eritrea iyo kuwa Eritreyaan oo wehelinaya ila xogaal ayaa noo xaqiijinaya in ku dhawaada 5,000 oo ciidamo Eritrea ah ay habeennimadii xalay ka soo tallaabeen xuduudda deegaanka Feerfeer ee deegaanka Soomaalida isla markaana ay u soo gudbeen gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidamadan oo saanadooda ciidan ay u dhameystiran tahay waxaa duulaanka ku wehelinaya 1,500 oo kamid ah ciidamadii Soomaalida lagu tababaray dalka Eritrea sida ay noo xaqiijiyeen ila ku dhow xuduudda gobolka Soomaali galbeed iyo gobolka Hiiraan sidoo kalena waxaa warbixinadan daabacaya warbaahinta qaar ee Eritrea iyo kuwa Itoobiya sargaal howlgab ah oo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida isla markaana ku nool cariga Mareykanka ayaa noo xaqiijiyay in ciidamadan ay si toos ah oo taageeri doonto dowladda Qatar oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay safar waxaa jiray heshiis iskaashi ah oo u dhaxeeyay dowladaha Itoobiya Eritrea iyo sidoo kale Soomaaliya oo la xiriira iskaashiga ciidan ee saddexdan dowladood ciidamadan laga keenay Eritrea ee ka soo gudbay xuduudda ayaa loogu talagalay inay ka howlgalaan xuduudda gobolada Hiiraan Bakool iyo sidoo kale Galgaduud ay Al-Shabaab deegaano kamid ah weerareen dhowr jeer oo hore isla markaana ay ka taliyaan socdaalkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay magaalada Dooxa ee wadanka Qatar ayaa la sheegay inay soo dejiday in ciidamadan ay ka soo tallaabaan xuduudda una soo gudbaan gudaha wadanka waxaa wehelinaya ciidamo Eritreyaan oo loogu talagalay inay ka taageeraan howlgallada ay ciidamadan u diyaar garoobayaan iyo dhameystirka khibradda ka dhiman maadaama ay soo qaateen tababarkii ay u baahnaayeen madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Qatar kala soo heshiiyay bajetka ku baxaya ciidamadan iyo howlgalkooda waxaana wararka kale aan helayna ay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dowladda Qatar ka soo saxiixay bajetkii ay ku hogeli lahaayeen 2 sano oo kaamil ah ciidamadan laga keenay Eritrea uu dhawaan booqanayo xeryaha loo diyaariyay ciidamadan oo laga hirgeliyay gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Bakool oo loo qaybin doono ciidamadan sidoo kale wararka aan ka helayno duleedka magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in ciidamadan xilli hore oo saaka ay ka soo tallaabeen degmada Feerfeer ee xuduudda gobolka Hiiraan oo la wadaago gobolka Shabeelle ee deegaanka Soomaalida iyagoo saanadooda u dhameystiran tahay isla markaana ay ku soo degeen xerar ciidan oo looga diyaariyay gobolka Hiiraan deegaan kamid ah halkaas oo ay ka bilaabanayaan howlgalladooda qorshaysan ee laga fulinayo gobolada kala duwan ee saddexda ee xuduudda leh waa Hiiraan Galgaduud iyo sidoo kale Bakool shargariya warbixinta qaybta faalada nagala wadaaga rutidii tan iyo kulanti dambana nabadgeliyo.